haweeneydan ayaa muuqaal u dirtay saaxiibkeed iyadoo adeegsanaysa application-ka Messenger-ka. laakiin haddii aad si dhow u fiirsato muuqaalka si taxadar leh aad u dhageysato waxaad ogaanaysaa wax walba inaysan ahayn sidii ay u muuqdeen. muuqaalka ay duubaysayna waxay ku dhahaysay adiga ayaan isu soo qurxiyay waxna sidoo kale aan ku soo iibiyay ee balfeer. qisadani ama sheekadan haddii aan sii guda galno waxay isku bedelaysaa mid aad u cabsi badan. waxaadna isweydiin doontaa tani sidee ay ku dhacday, halkaanise maxaa ka socda. waxaa kale oo laga yaabaa inaad is weydiiso ma wax baa ka qaldan gabadhaani. sidoo kale gabadhii waxay tiri waxaan ula jeedaa waxaan rabaa inaan adiga ku naxariisto. yacni fariinta ama muuqaalka ninka u diraysay ayaa doonaysa inay isaga kusoo jiidato. aniga khafiifo ahaan waxaan bis iri waxaa laga yaabaa gabadhaani inay wax ka qaldan yihiin. salaam saaxiibayaal, waa walaalkiin saaxiibkiin khafiifo. kusoo dhawaad muuqaalkeena maanta iyo kiis cusub. dhakhtarad da'yar oo ka timid gobolka Mayshagan ayaa la la'yahay ku dhawaad 3 toddobaad. kiiskanina marba marka kasii dambaysa wuxuu sii noqonayaa mid aad u yaab badan. tani waa baaritaan ku saabsan qof la la'yahay ilaa hadda ma jiro xog si cad ah u muujinaysa wixii dhacay. sirta dhakhtarkii la waayay. gabadhaani ayaa maalin waxay ka codsatay mid kamid ah shaqaalaheeda inuu geeyo hotel Reducer. ilaa iyo haddana lama oga sababtay halkaas u aadaysay. waxaa kale oo muhiim ah inaad ogaato inay ahayd ayada qof aad u jecel dhool cadaynta. markastaana way dhool cadayn jirtay. taas ayaan igu dhalisay inaan isweydiiyo ma caafimaad qabtay gabadhaani. xitaa mararka qaar aniga ahaan waxaan is iri oo aan ku fikiray gabadhan muuqaaladan qarsoodiga ama waxay ugu duubaysay gargaar ahaan, yacni inay gargaar isiga ka codsato ama caawinaa. waxay qarinaysay dhibaatooyinka ka dareemaysay gudaha ayadoon mar walba dhool cadaynaysa. mararka qaar waxaan u maleynayaa dhool cadayntaas inay iska ahayd mid iska yeelyeel ah. inkastoo ay taasi u muuqato wax la yaabo, laakiin sidaas ma aysan ahayn. waxay ahayd qof qalbi wanaagsan, farxad badan, dadka nolol dhaqma si wanaagsan. laakiin maalintii ay codsatay in la geeyo hotel Reducer wax walba ay ka duubnayeen sidii caadiga ahayd. qaalihii geeyey ayaa wuxuu sheegay gebi ahaanba dabeecadeeda inay isbedeshay, mana aysan ahayn gabadhii farxad badneed ee uu yaqaanay. waxaa xitaa uu yiri amba dareemay sida jirkeeda inuu soo galay islamarkaasiba qof kale. tani ma aysan ahayn haweeneydii aan aqaanay aan la shaqayn jiray. si kastaba ha ahaatee wuxuu geeyey hoteelka. muuqaalada ama CCTV-gana waxay duween waxyaabo cajiib ah. markaad muuqaalada si fiican u fiirsan waxaad dareemaysaa inay jireen waxyaabo aan caadi ahayn. iyadoo idilba waxay xiratay dhar madow ah. markay dharkaas qaadanaysayna waxaa lagu jiraa habeen. shaqaalihii ayaan geeyey hoteelka, sababta uu u geeyna lamaba yaqaan. markaasi gudaha hoteelka soo gashay iyadoo xiran koofiyad daboolaysa madaxa. markaasi ay waxay u tagtay mid kamid ah shaqaalaha iyadoon u sheegaysa inay rabto inay kiraysato qol. qaali ayaa wuxuu ka codsaday kaarka aqoonsiga, sidoo kale wuxuu u sheegay qiimaha qolka. balse nasiib daro ma aysan haysan lacag ku filan, sidoo kalena ma aysan wadan aqoonsigeeda. sidaas darteedna waa loo diiday hoteelka. waxay ku qasbanaatay inay sidaasi ugu baxdo. shaqaalahan aad arkaysan ayaa markii dambe waxaa wareystay baarayaasha. waxayna weydiiyeen siday ula dhaqmaysay maalintaas. isagana wuxuu u sheegay ayada inayba u muuqatay qof aan caadi ahayn. wuxuuna yiri markaan la hadlayay waxayba u muuqatay ayadoo idil qof dareemaysa cabsi. joogtaan waxay fiirinaysay gadaasheeda, balse si aan indhaha loo saarin waxay u ekeed qofka dhuumanaya cid daba socota. keedun wuu gariirayay, taasoo sii muujinaysay inay buubaqaysay si dhab ah. kastoo aan ku khasbana inaan ka diido qolka aad ayaan uga xumaaday, sababtoo ah si dhab ah ugu muuqatay qofka cararaya qof kale. cadowdaani shaqaalaha wuxuu uu sheegay ma aysan buunbuunin, waxay ahayd laakiin arrin aan caadi ahayn. markii uu ka tegay ninka, haweeney kale ayaa u timid oo weydiisay ma fiican tahay, sababtoo ah muuqaalkeedu wuxuu muujinayay inaanay xaaladeedu wanaagsanayn. argentina ma aysan bixin wax jawaab ah, waxa keliya ay ruuxaysay madaxeeda weliba si kooban. kadibna shaqaalihii ayaa kusoo laabtay oo ku yiri ma kiraysan kartid qolka. markaasi ay si degan ugu soo baxday hoteelka. ay baxaysayna waxay la kulantay mid kamid ah shaqaalaha, waxayna ku tiri waxaan arkay inaad leediin gaadiid, fadlan ma igeen kartaa goobteyda shaqada. waxaan u baahanahay inaan lacag ka soo qaato, gaarina ma wato. saaxiibkey ayaa halkaani keenay, markaan lacag soo qaatana waad soo celinaya ku tiri. qaaliin wuu ogolaaday. markaas wuxuu ku yiri hay kaale gaariga soo fuur aan ku geeyo goobtaada. intii ay gaariga saarnaayeenna eed hal mar xitaa ma aysan hadlin. waxay fadhiday kursiga dambe iyadoo daaqada dibadda ka fiirsanaysa, mana u muuqan qof dareemayo deganaan. shaqaalihii gaariga wadaayena wuxuu dareemay gabadhaani inay wax ka qaldan yihiin, balse wax badan ma uusan weydiin ee wuxuu u daayay sidii ay ahayd. markii ay gaareen goobteedii shaqadana waa ay ku booday iyadoona ku dhaysa ma doonayna adiga kula laabto waad iska laaban kartaa. soo degatay gaariga, kadibna madaxeeda ay hoos u fooraarisay iyadoona si taxadar leh hareeraheeda u eegaysaa sidii qofka baqaya in qof kale uu daba socdo. sidoo kalena waxay firfiirinaysay hareeraheeda, waxayna u muuqatay inuu qof daba socdo, sidoo kalena ay ka dhuumanayso. shaqaalihii halkaas geeyey isagana wuxuu eegay hareeraha si uu arko waxay gabadhaani ka baqayso, balse isaga ma uusan arkin wax shaka geliya. laakiin iyada cabsideedu aad bay u weyn, waxayna ahaydba inay gudaha usii gasho isbitaalka maadaama walkaasi ahaa goobteedii shaqada. waxay sheegtay inay lacag kasoo qaadanayso, balse iyada gudaha ma aysan ogan. waxayna dareemaysay cabsi iyo walbahaar fara badan. warihii gaariga ayada leed ay jeebkeeda kala soo baxday, islamarkiina waxay u carartay dhanka iyo gaarigeeda ayay shidatay, kadibna way baxsatay. halkaas ay ka noqotay sheekada mid aad u murug badan oo qarsoodi. waxaa hadda laga joogaa 3 bilood tan iyo markii ugu dambeysay ayada la arkayay. darka ka shaqeynaya kalaamzo takeyka Patrick oo silma filaan ah u laaday. markii ugu dambeysayna waxaa qabtay
qabteen CCTV-da ayadoo joogta Hotel Raison ee bartamaha Kalamazoo. Dibna waxaa la arkay ayadoo kasii baxaysa isbitaalkii ay ka shaqeynaysay. Hadda adiga daawade waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso maxaa shaqaalihii oo booliisku ugu yeeri waayay ama muxuu ugu fidin waayay gargaar degdeg ah. Laakiin intaasi waxaa ka muhiimsan qofka in la fahmo wax awoodiisa oo uu sameyn karo. Marba haddii qofka go'aansada inuu baxo ma joojin kartid. Gabadhan furaha gaariga ay jeebkeeda kala soo baxay kadibna waxay isku dayday inay baxsato isagana ma uusan joojin oo iska fasaxay. Sidaas darteedna shaqaalihii wuxuu ku qasbanaaday inuu iska daayo si ay u baxdo. Inkasta uu dareemay gabadhaasi inay ku socdeen waxyaabaan caadi ahayn. Aniga khafiifo ahaan waxaan aaminsanahay shaqaalihii goobta shaqada inuu weydiiyay waxa ku dhacay sababta sidan uu dareemayso. Laakiin waxay u badan tahay inay iska dhatirtay maadaama ay dareemaysay cabsi aad u fara badan ama cabsi xoogan. Waxayna hareeraheeda iyo gadaasheeda iyo horteedaba u fiirinaysay inaan ayada la afduuban, yacni qof inuu qabsan rabo oo kale ay dareemaysay. Markay kacstay gaarigeeda waxay bilowday inay si xooli ah u wado ayadoo aan iska xakameynaynin wadada, taasi oo khatar gelin karta nafteeda iyo tan dadka kale. Qaabkay gaariga u wadaysay darteed dad fara badan ayaa waxay waceen booliiska ayagoona ku dhahayay gaarigaas anaga waan ka shakisanaa qaabka uu socdo ma aan u bogin. Wicitaanadii degdeg ah darteeda waxaaba la sheegay in gaari uu wadada ka baxay uuna ku dhacay god, isla markaana nalalka gaariga wuu dansanaa waxayna ahayd habeen. dadkii wadada marayay booliiska ay wacayeen ayagoo dhahayeen gaarigaas hala joojiyo, gaarigaas waxbaa ka khaldan. midaasi ayaa waxay dhalisay su'aal ah gabadhaani xaaladeeda ma fiicneed, ma waxbaa ku dhacay gabadha. markaas dadka gabadhaas waxay ula muuqatay inay tahay qof ka cararaya khatar weyn, balse weli lama arkin qof daba socday iyada. keligeed ayna wadada si xawaaro sare leh ugu socotay. markuu shilka dhacay kadib dad fara badan ayaa soo wacay booliiska si ay ugu warbixiyaan wixii dhacay. booliiska markiiba waxay gaareen wadada, balse nasiib door iyada ma aysan helin. inkastoo markhaatiyaal fara badan ay arkeen iyadoo gaariga si xawli ah u wadaysa, haddana markii ay booliiska sameeyeen baaritaan waxayba muuqatay inay si lama filaan ah u baaba'day. ugu dambeyn waxaa la helay gaarigeedii casaanka ahaa kaasoo qiyaastii 40 fiit ka baxsanaa dhinaca wadada weyn. dabagal ay sameeyeen eeyo tababaran ayaa muujiyay in raadkeedu uu ka bilowday gaariga una sii socday dhinaca wadada, halkaas ayuu raadkii ku dhammaaday. wax kalena lama helin. qofkii helay gaariga, yacni qofkii arkay gaariga ayaa wuxuu wacay booliiska isagoona ku dhahay waxaan halkan yaala gaari casaan ah oo qof leeyahay. baarayaasha ayaa goobta yimid waxaana halkaas ka bilowday baaritaankii weynaa ee lagu raadinayay Takika Battery. markii ay baarayaasha halkaas yimaadeen waxay arkeen gaarigii shilka galay. waxay filayeen inay gudaha ku jirto, laga yaabay inay miyir beeshay, yacni inay suuxsan tahay. laakiin waxaa jiray arrin yaab leh. markhaatiyaashii goobta joogay ma aysan ag taagnin gaariga. caadiyan marka laga hadlayo qofku markuu shilka galo dadkooda ay soo cararaan si ay qofkaas u caawiyaan, laakiin ayaga agtiisa xitaa ma aysan taagnin. booliiskii ayaa markaas waxay la soo degeen lalgacmeed maadaama ay habeen ahayd, waxayna u dhawaadeen gaariga ayagoona weliba fiirfiirinaya gudaha. laakiin ayada halkaasi ma aysan ku jirin ee waa ay ka maqneen. markaas ay booliiskii waxay fahmeen sababtay markhaatiyaasha ugu fogaadeen gaariga. hore ayay u hubiyeen markhaatiyaashii mana aysan arkin qof ku jira gudaha gaariga. qofka shilka dhacayna labada dhinacba waxaa ku hareereysnaa geedo waaweyn. sidaas darteedna waxaaba loo qaatay inay u carartay dhanka iyo keynta. baarayaashii ayaa waxay gaariga ka dhex heleen furayaasheedii, boorsadeedii, telefoonkeedii gacanta iyo weliba dhammaan agabkeedii muhiimka ah. taasin waxay muujinaysaa shilka kadib gabadhaani inay ka boodiyay gaariga oo u baxsatay dhankaas kale iyadoo nafteeda badbaadsanaysay. weli cabsideedu waxay u muuqatay mid aad u ballaaran. booliiskana isla markiiba waxay bilaabeen howlgal oo gabadhaasi lagu raadinayo, ayagoona keenay kooxaha gurmadka iyo eeyo tababaran. eeyihii raadraaca ayaa baaray dhammaan deegaanka, balse ma aysan helin wax raad ah oo cad oo lagu sii dabagalo. halkaasi ayaa waxaan kusii adkaaday sirtii kiiska. intii uu baaritaanka socday waxay heleen meel biyo ah oo ku dhex taalay keenta. kadib ay baarayaasha waxay arkeen meel har ah, isla markaasna waxay ka shakiyeen in meeshaas lagu riday kadibna halkaas ku dhimatay. sidaas darteedna haradii ay si buuxda u baareen. qoysyaal ayaa ka baaray biyaha hoostooda. haaraha hareeraheedana sidoo kale waa ay baareen. baaritaankaas dhowr jeer ayaa lagu celceliyay ayagoo aanan ka tegin wax raad ah. xitaa maalmo kale ay dib ugu soo noqday ayagoo weli sii baaray, laakiin ma aysan ka helin wax raad ah. si kastaba ha ahaatee mid kamid a eeyihii raadraaca ah ayaa wuxuu helay urkeeda. raadkaasina wuxuu galay dhinacii keenta, laakiin ma uusan sii fogaan. kadibna wuxuu dib ugu soo laabtay raadkii halkii uu yaalay gaarigeeda. waxay u muuqatay inay ka carartay gaariga oo carartay dhanka iyo keenta, isla markii raadin dib ugu soo laabtay gaarigeeda. kadib raadkii wuxuu kasii dhaqaaqay gaariga 10 ilaa 20 fiit isagoona ku dhammaaday wadada weyn. taasina waxay dhalisay tuhon ah inay halkaasi ka raacday gaari qof kale uu watay. waxaa jiray nin lagu magacaabo James kaasoo eeda telefoon kula hadlayay. James tiina waxay u sheegtay qof inuu doonayo inuu eeyada uu dilo. waxayna uga celcelisay inay jiraan dad doonaya inay eeyada dilaan oo daba socda eeyada oo keliya. wuxuu yidhi aniga waan baqay, eeyadan sidoo kale aad ayay u baqaysay. arrintaasna aniga aad ayay cabsi gelisay. sababta waa wuxuu isweydiinayay maxaa loo doonaya in eeyada loo dilo, sabab maxaa keeni kara. James markaas wuxuu ku dhahay taasi ayaa waxay noqotay hadalkeeni ugu dambeysay.
arrintaasi ayaa baarayaasha ku hogaamisay inay eegaan kanaalkeedii YouTube-ka waxaana halkaas ka bilowday arrin aad iyo aad u cabsi badan sidoo kale yaab channelkeedii YouTube-ka oo lagu magacaabo Sandra 3000KC waxaa ku jiray muuqaal ciwaankiisu ahaa maalinteedii cajiibka ahayd kastoo muuqaalkan ay daawadeen 24,000 qofood haddana wuxuu u ekaaba mid loogu talgalay kaliya inuu daawado hal qofood qofkaasi qofku ah lama yaqaano laakiin waxaa si cad u muuqatay qofkaasi si qaasayn isaga loogu dirayay markaad aragtana muuqaalada kale waxaaba ogaan doontaa sabab markaasi waxay tiri waan ku salaamay gacaliye habeen wanaagsan waa aniga Tiina waxaan u imid inaan ku salaamo oo aan kaaga sheekeeyo maalinteeda muuqaaladeedana badanaaba waxay ka bilaabi jirtay erey aad u jilcan sida dhiya ama qaali ama gacaliye taasi oo ahayd dabeecad aan caadi ahayn oo dadku idil u yaabi jireen sidoo kale waxay sameyn jirtay hadallo jacayl oo eg iyadoo muujinaysa dareenkeeda iyo wax waliba ay qofkaasi u qabto laakiin marka si qoto dheer loo eego waxay u muuqataa gabadhaani inay jacayl u qaadeen inay u diri jirtay muuqaaladeeda sidoo kale xitaa qofkaas way heesi jirtay waxayna u diri jirtay muuqaalo gaar ah laakiin markii qaar is bedeshay ayadoon dhihi jirtay ma garanay xitaa labadeena hadda wax naga dhaxeeya sidoo kale xitaa gabadhii waxay tiri ma garanayo waxa nolosha iyo waxyaabaha nagu hareeraysan ka socda markaas waxay ku tiri waxaan inuu hayaa fikrad haddana waxay tiri iska daa qofkan waxay muuqatay ka waranayo qof aad iyo aad jecel u ahaaya sidoo kale gabadhan waxay ka shaqeynaysay labadooda sidoo xiriirkooda u wanaagsanaado inay noqon dadka ugu wanaagsan dunida isla markaana ay geliyaan dadaal buuxa xiriirkooda saaxiib yaal qoftaani ma ahanba qof la heli karo sababtoo waxay tiri adiga dadaalkaaga sameey anigana dadaalkayga ayaan sameynaya saaxiib gacaliye macaani labadeenaba fursad aan isa siin halkaani ay arrimihii waxay ka bilaabmeen inayba noqdaan kuwa yaab leh markii hore keli waxay u muuqatay gabar kaliya ku jirta jacayl ama arrimo jacayl laakiin waxay bilowday inay dadaal far badan ay samayso inkastoo ay u muuqan karto wax qurux badan haddana waxaaba jiray waxyaabo dadka yaabgeliya waxay muuqaalada ku muujisay siday ugu diyaarinayso cunto cashii quraac gaar ay samaysatay laakiin iyadoo keliya maysan samaysan qof kan waa ay u samaysay raashinkaas waxay u samaysay laba qofood taasina waxay dhalisay su'aal taasi oo ah labadiinaba ma is aragtay maxaa qofkaani magaciisa loo sheegi leeyahay maxaad uga hadlaysaa qof aanan waxba kaa ogeyn markaasi ayaa waxay tiri kuwaani waa waxyaabihii aan diyaariyey haddana sidoo kale waxay tiri aniga xitaa sidoo kale ma cuno digaagta ee waxaanahay qof cuno qudaarta laakiin anigu waxaan rabay inaan ku sameeyo midaasi waxaan isla amu cunaa digaaga haddana sidoo kale waxay tiri ilaa iyo hadda waa baradho oo keliya haddii aad halkan joogi lahayd tani waxay ahaan lahayd saxankaaga sidoo kale waxay sii raacisay basbaas iyo farmaajo kastoo mar ay sheegtay ereyga gacaliya haddana ma aysan jirin naanays kale ugu yeeraysay ama magac kale oo gaar ah haddii ay sameynayso dadaalkani oo dhan badanaa laba qofood oo xiriir leh waxay leeyihiin naanayso gaar ah laakiin halkaani waxaasi maba lagu arkin waxay tiri aniga xitaa digaagad ma cuno ee waxaan cunaa qudaarta halkaas hakad geli bal hadalkaasi ma maqashan saaxiibayaal waxay sheegatay inaysan cunin digaagada ee keliya ay cunto qudaarta laakiin haddana waxay dadaal weyn u gashay inay soo iibsato digaag dhab ah si ay isaga ugu diyaariso digaagada taas ayaa keentay su-aasha ah maya tani ma ahayn oo keliya inay muuqaal ku tusayso saaxiib habeenkaasi qoftaas keligeeda ma aysan ahayn ee qof ayaa la joogay arrintaasna waxay dhalinaysaa dareen cabsi iyo yaab leh sababtoo ah wax waliba waxay u muuqdeen kuwa aan caadi ahayn iyada haddii ay tahay qof cun qudaarta waxaa laga yaabaa qofkaasina uu sheegay inuu jecel yahay cunida digaagada iyaduna ayba go'aansatay inay u samayso kadibna ay u tusto muuqaal ahaan laakiin markii baarayaasha ay daawanayeen muuqaalada YouTube-ka waxay bilaabeen inay isweydiiyaan arrimo kale bal ukaaja waxaa laga yaabaa baniyow saaxiibyaal oo gabadhaani inay hore u aragtay ninkan ay sheegayso sababtu waxay ahayd muuqaaladeeda in laga arkayo ubaxyo casaan ah tani waxay ahayd faahfaahin aan la iskandhatiri karin sidoo kale waxay marar badan ka hadashay ubaxyadaas iyaduna dhehaysa ilaa ay hadda waxaan ahayaa ubaxyadii markii hore ereydaas oo markii horeda ah ayaa waxay noqdeen kuwo muhiim ah sababtoo ah waxay muujinaysay in laga yaaba inay hore wax u dhaceen kan waxay noqon kartaa inay ula jeedo kulankeedii ugu dambeeyay ama waxaa laga yaabaa maadaama ay dadaal far badan ku bixishay inay tusiso cuntada uu jecel yahay in ay sidoo kale iibsatay ubaxyo ay jeclaan lahayd inuu isagu siiso midaasina waxaa laga yaabaa inay rabtin inay ugu sheegto qaab dadban iyaduna dhehaysa eeg ubaxyadan oo kuwan jeclaan lahaa inaad aniga ii soo iibiso sidaas darteed ayaana waxaa laga yaabaaba ubaxyadaasi inay sidaas ugu soo muuqdeen muuqaalka laakiin midaas waxay u muuqatay inay ahayd fariin dadban oo qarsoon sababtoo ah ma aysan dhehayn ubaxyadan waa inaad ii soo iibisaa balse keli waxay muujisay in uu yahay nooca ubaxyada ay jeclaan lahayd in loo soo iibiyo waxayna noqon kartaa mid ka mid ah labadaas arrimood waxaan idin weydiinayaa saaxiibayaal su'aal haddii aad caruur leedahay amaba aad qorsheynayso inaad yeelato caruur
ka fikir arrinta bal qiyaas waxaad tahay waalid gabadhaadan waxay ku sheeganaysaa wax waliba oo ku saabsan nolosheeda waxaadna ogaanaysaa markay qof xiriir la sameynayso iyo markay kala tegayaan labada marba markaasi xiriirka adiga iyo gabadhaada idinka dhexeeyaba aad ayuu dhow yahay waxaadna ka hadashaan arrimo fara badan oo dadka badanaa aysan ka hadlin taasina waxayba muujinaysaa sidaad labadiinaba isugu dhowdihiin laakiin waxaad ogaataa gabadhaad inay ku jirto xiriir kale oo aan adiga ogeyn taasi waxay noqon lahayd arrin aad adiga kugula yaab badan sababtoo ah caadi ma aysan ahaan lahayn gabadhaada haddii ay wax waliba adiga kula wadaagto taasina waa meesha ay ka dhalanayso su-aasha ah sidee ay suurtagal u tahay in qof aad ugu dhow uusan ogaan karin xiriirka gabadhiisa kadib waxaa la ogaaday gabadha in aan la qabin sidoo kalena aysan lahaynba wax saaxiib ah haddaba su-aashii waxay noqotay yaa ay gabadhaani cuntada u karinaysay waxay ahayd arrin aad u yaab badan in la arko iyadoo diyaarisay cunto dhammaystiran miisna ugu diyaarisay weliba 2 qofood laakiin ugu dambeyn iyada oo keliya ay fadhido tiina maxay qofkaan inooga qarinaysay maxay ahayd sababtoo ah waxaan ognahay inay ninkan si weyn u jeclay xitaa waxay u muuqatay ninkan inay u qaaday jacayl dhab ah waxay u duubaysay dhammaan muuqaaladani laakiin waalidkeed waxba ma aysan ka ogeyn haddana marka la eego xiriirka ka dhexeeya ayadii waalidkeed wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan laakiin midaani maba aysan ka warqabin haddaba waxaa laga yaabaa inaad isweydiido oo aad isdhahdo waxaa laga yaabaa gabadhaas inay leedahay dhibaato dhanka iyo maskaxda arrinkani ay tahay qof keliya ka samaystay maskaxda taas ayaa sharxi karta sababta uusan cidna u aqoon ninkan sababtaan magaciisa loo helin iyo sababta xitaa aan loo arag wejigiisa Patrick ayaa soo saaray bayaan ay kaga jawaabayaan muuqaaladan cusub runtii kama foga fikirkaas aad sheegtay sababtoo ah waxaa jira waxyaabo arrintaas la xiriira waxaa la helay qoraalo oo Twitter ah oo la sheegay inay Tina ay soo qortay toddobaadkii ka horeysay intii aysan lumin qoraaladaas oo idil waxay muujinayeen inay qof la hadlayso qofkaas magaciisa weligeed xitaa ma aysan sheegin qofna kama jawaabin qoraaladeeda waxay u muuqatay sidii qof nafteeda la hadlaysa mid kamid ah qoraaladeeda waxay ku tiri shalay waxaan dareemay joogitaankaaga kaliya waxyaabo lama oga qofkay la hadlayso laakiin waxay u muuqatay inay qof gaar ah ula jeedo qoraal kale ayaa waxay ku tiri xalay kadib markii aad fariin ii soo dirtay waxaan ba dareemay inaad aniga iga fikiraysay mid kalena waxay ku qortay waxaan rajeynayaa maanta inay ku noqoto maalin wanaagsan waan ku jeclahay laakiin markay qoraaladan sameeynaysay ma jirin qof ay ku soo xustay magaciisa sidoo kale ma jirin qof u soo jawaabay fariimaheeda ayada ma jeclaan sidoo kale ma jirin qof faafisay fariinteeda macni xitaa like saar wax waliban waxay ku koobnaayeen iyada oo kaliya qoraal kale xitaa waxay ku tiri ma samaystaa bog kale gacaliye sidoo kale waxay sii raacisay raadi saaxiibka laakiin waa saaxiib laakiin lama oga qofku uu yahay sidoo kale waxay sii raacisay ila soo socodsii marka aad hesho waxay soo qortay iyadoo dhehaysa ma heshay waxaan 2 maalmood fariimo kale kaga soo dirayay akoon kale waxaan moodayay kulaha inaad heli lahayd waxay u muuqataa mar qofkaas inay tijaabinayso marna waxay u muuqataa inay nafteeda tijaabinayso marna waxay u muuqataa inay waalan tahay gabadha haddaba gabadhan waxay u muuqataa inay qof iyada gaar ah arkaysay yacni ku jira maskaxdeeda oo ay la hadlaysay qofkaas laakiin 3 jeer waxay sheegtay qof magaciisa qofkaas oo ah qof wadaad ah lagu magacaabo Marvin Saab dambe qoraaladeeda waxay ku soo dirtay ninkaas iyadoo dhehaysa subax wanaagsan marka nolosha ay ku sii soo liin sameyso liin macaan ku lahaa qoraalkaasina waxay soo dirtay 2013 sidaas darteedna dadka loo macnaanin karo oraahdaasi ama qoraalkaas sababtoo ah oraah caadi ah oo dad far badan isticmaalaan wuxuu ahaa qayb la xiriirta muusiga diinta yacni ayada diinteeda Mr. Saab ma ahan yacni qof wadaad ah ee waa qof qaada heesaha yacni heesaha Kristiyaanka ee ka dhex qaaday kaniisadaha cilmi-baarayaashii ay waxay bilaabeen ninkan inay si qoto dheer u eegaan waxaana soo baxay waxyaabo yaab leh oo labadooda la xiriira magaca saxda waa Tekisia anigana hore ayaa u qalday magaca waxay qortay waxaan u soo guuray inaan kula joogo waxay kaloo tiri waxaan u maleynayaa inaad jeceshahay si aan labadeennaba jecel u wadaagno isu guursano carruurna u yeelano ama carruurna aan u dhalno qoraal kalena waxay ku tiri haddii aad ogtahay haddii aadan ogeynba shalay waxaan isku day inaan adiga kusoo booqdo halkan waxaa ka imaadeen su'aalo fara badan kuwaasoo dhahaya ma qof bacida daba socday ma qof ay raadinaysay eeda xiriir dhab ayaa ka dhexeeyay labadooda mase keliya ayada ayay ahayd xiriirkaas isagana wuxuu iska ahaa qof caan oo ka dhex muuqda meelaha heesaha waxaan laga yaabaa inay ahayd qof eeda isaga taageerto aad u jecel isaga yacni heesiyihiisa iyo qaabka heesa iyo qaabkiisaba Mrs. Tina waxay leedahay 5 akoon oo Twitter ah waxayna ku qortay kumanaan qoraal qaar badan waxay u ekaayeen fariimo qarsoon oo sheegaya inay ruux ahaan isku xiran yihiin inay isku talo yihiin isguursan doonaan carruurna ay yeelan doonaan si weyn u jeclaatay ninkan ugu dambeyn ninkii wuxuu arkay qaar kamid ah qoraaladeeda balse aqoon uma uusan lahayn markaas ayaa isagana wuxuu dareemay cabsi sababtoo ah waxay u muuqatay taageero si xad dhaaf ah uga mashquulsan isaga heesaagii arkay arrintan wuxuu isku day inuu dabagal haddana waa uu baqwa uu istaagay laakiin wax uusan ogeyn ayaa ahaa in carruurtiisa ay u sheegi doonaan inay Tina fariimo u dirtay si ay ugu soo dhawaato isaga waxay heshay wado ay kula xiriirto carruurtiisa taasoo xaalad ka dhigtay mid aad ka sii walaac badan waxaa kale oo la sheegay inay boorsooyinkeeda qaadatay kadibna ay gurtay California halkaas oo ahayd halka uu ku noolaa Marvin Saab tagtay meel u dhow kaniisadii uu ka heesi jiray iyo goobihii uu caanka ka noqday si waxay ka dhigantaa markii ay tiri waxaa laga yaabaa inaan ku soo booqdo waxaana suurtagal ah inay run ahayd sababtoo waqtigaas waxay ku nooleed isla deegaankaas waxaa jirta suurtagalnimo inay gaartay gurigiisa inkastoo aan la ogeyn sida ay ku heshay ama haddii guriga ahaa meel xiran si far badan ayaa jira mid kamid ahna wuxuu
leeyahay inaysan kiniisadda si toos ah u aadin balse gaarigeeda ku sugaysay. waxaa la rumaysan yahay inay sugaysay lawa ka soo baxayo kiniisadda, dibna ay daba kacday gaarigiisa si ay usoo ogaato halka uu ku nool yahay. sidaas ayayna ku ogaan kartay gurigiisa, waxaana suurtagal ah inay halkaas tagtay habeenkaas. sababtoo waxay u muuqatay qof aad u doonaya inay xiriir la sameyso oo aysan jirin xataa wax si fudud u joojin kara. laakiin waa in la xasuustaa ninkan arrintan lagu soo daray oo keliya, sababtoo ah Takesia waa la waayay. markay baaraash baareenna qoraaladeeda waxay arkeen in magaciisa ay dhowr jeer xustay. ayaa sababtay in Marvin Sapp lagu soo daro kiiskan, laakiin markii dambe waxaa la soo cadiyay qofkan inuu maqnaansheeda xiriir ah uusan la lahayn. sidaas darteed sheekadu waxay muuqatay inay u leexanayso dhinaca dabagalka iyo ninkan heesaaga ah. dhab ahaantii halkaasi maysan ku dhammaan. arrintan waxay sii noqotay mid jahwareer badan markii ninkan laga saaray kiiska. wuxuu sii noqday mid aan xaal lahayn. xaqiiqdan waxay noqotay gabadh ayaa la waayay, mana jirto cid og siday ku dhacday. waxay dib ugu laabanayaan habeenkii ay tegaysay hoteelka markii ay shaqaalihii la kulmeen oo ay u dhaqmaysay si aan caadi ahayn. laga yaabaa inaysan qabin dhibaato maskaxeed, balse dhab ahaantii uu daba socday qof uu doonay inuu waxyeeleeyo, afduubto ama xitaa dilo. waxaana suurtagal ahayd in iyadoo dhab ahaantiiba ahayd qof la daba socday oo khatar ku cararaysa. waxaa dhici kartay inay ahayd taageere aad weyn oo keliya oo jecel heesaaga, ayaana dadku ekeysin karta inay nafteeda la dagaalamayso ama maskaxda wax kaga jiraan. laakiin waxaa laga yaabay inay keliya ahayd taageere. waxayna qori jirtay qoraallo fara badan, qof aan jawaab ka helinna ay la hadlaysay. waxyaabo badan ayay samaysay. waxaa laga yaabaa inay dhammaantood ahaayeen waxyaabo isku soo beegmay oo keliya. iska dhigno ninka ay sheeganaysay inuu yahay saaxiibkeed, magac lama garanayo, muuqaaladana laguma arag iyaga oo wada jira ama cadeymo kalena ma jiraan. waxaa weli suurtagal ahayd gabadhaasi inuu qof daba socday. inkastoo arrintaas ay weli si buuxda isugu xirmin, haddana marka la eego dabeecadeedii waxay u muuqan kartaa mid macquul ah. laakiin waa inaan xasuusanaa araadkeedii ugu dambeeyey in laga helayo meel u dhow wadada weyn. waxaa suuragal ah inay halkaas ka raacday gaari qof aan la aqoon, taasina ay nasiib xumo ugu dhacday. haddii ay la tacaalaysay xaalad maskaxeed ama qof ay ka cararaysay, weli waxaa dhici karta in qof xun uu wadada ku qabtay kadibna waxyaabo xun uu ku sameeyay. laakiin isla markaasiba wax cusub ayaa laga helay keynta. tani ma aysan ahayn jawaabtii qof walba rajeynayay. baarayaashu waxay xaqiijiyeen in meyd laga helay ku taala Indiana, qofkaasina uu ahaa Tina. laakiin furayaasha gaariga, lacagtii qalabka jeebka ku siditay ee laga helay haweeneyda meyd laga soo saaray harada yar waxay si toos ah ugu xirnaayeen Patrick. haradaasi ma aysan ahayn mid weyn. baarayaashan dhowr jeer ayay baareen, kadib markii ay baareen waxay is yiraahdeen inaan mar kale dib ugu laabanaa oo aan hubinaa inaysan waxbana dhaafin. waxay haysteen iyagu ku fiican baaritaanada, waxayna baareen deegaanka oo dhan, laakiin waxba ma aysan ka helin. intii dambe ninka lulumaysta oo harada ka kulmaysanay ayaa helay meydka meel u dhow biyaha, waxayna noqotay Mrs. Patrick. sababtoo ah dhimashadeeda waxaa lagu sheegay inay ahayd qarqasho, ma jirin wax calaamado dhaawac oo muujinaya qof waxay. taasina waxay keentay su'aalo fara badan. ma qof ayaa dib ugu soo celiyay meydkeeda halkaas, mase baarayaashii ay mar walba keendatirayeen? waxaana suuragal ah inay si fudud u seegeen intii ay baarayeen. laakiin wax weliba oo ku saabsan kiiskani waxay ahaayeen kuwaan caadi ahayn. qaar waxay sheegayeen inay aaminsan yihiin inay garanaysay qofkii iyada la xiriiraysay, isla markaana ay ka baqaysay inay wax dhacaan. oga wixii sababay cabsidaas, laakiin waxaa muuqata in wax loo sheegay ama wax dhacay oo ku kalifay inay dareento cabsi. dambeena booliiskii waxay sheegeen inay u badan tahay inay wax dhaceen, inuu ahaa xaalad maskaxeed oo loo yaqaano manic episode. sidoo u badan tahay habeenkaas waxay rumaysneed inuu qof daba socdo, inkastoo aysan jirin cidaba, haddana maskaxdeeda ay sidaas uga muuqanaysay. sidaas darteedna waxay raadinaysay meel ay ku dhuumato. markaasi waxay aaday hotel, waxayna shaqaalaheedii ka codsatay inuu geeyo hoteelkaas, sababtoo ah ma rabin inay gaarigeeda isticmaasho. waxay u maleynaysay haddii ay gaarigaas kala raacdo inaan la ogaan doonin. markii hoteelka tagteen waa loo diiday, kadibna waxay dib ugu soo noqotay goobteedii shaqada si ay lacag ugu soo qaado. laakiin markii ay kusoo noqotay goobteedii shaqada waxay meeshaas ku aragtay isla qofkii ay ka baqaysay. sideedii way sii korortay, way sii laba jibaarantay, waxayna gashay gaarigeeda iyadoo si xawaare sare ah soo baxday meesha. waxay maleynaysay inuu qofkaas daba socdo, inkastoo dadka wadada marayaan ay wacayeen booliiska, iyagoona arkayay qaabka halista badan ee wadaysay gaariga. dambeena gaarigeeda taayirka uu ka baqay, kadibna wuxuu galay shil. xilligaasina waxay si weyn uga baqaysay nolosheeda. waxay ka degtay gaariga oo markaasi waxay si toos ah ugu carartay keynta. waa xaalad aad u cabsi badan, sababtoo ah waxay u carartay keynta ayadoo aaminsan inay ka baxsanayso qof doonaya inuu dilo. kastoo ay ahayd xaalad maskaxeed oo saamaysay fikirkeeda, waxay u muuqatay inay dooratay wadadii ugu khatarta badneed oo ahayd inay gasho keynta. waxayna sii oroday ilaa ay si kamaha ugu dhacdo meel biyo ah. markii ay biyaha ku dhacdayna argagax fara badan ayaa gashay. cabsideeda darteedna waxay u badan tahay inay ku adkaatay inay kasoo baxda biyaha. ugu dambeenna way ku haftay. aaga lagu tilmaamay qariidada wuxuu ahaa dhulkeyn ah oo balaaran. keyntu aysan u muuqan mid aad u weyn, laakiin dhab ahaantii waa meel ku filan qof haddii uu gudaha galo aan si fudud loo maqli karin, gaar ahaan iyadoo ay wadawooyinka agdhowda. harada Charles ah aad meesha laga helay, meesha lagu calaamadeeyey gaarigeeda la dayacay ayaa ahayd halka ay kasoo ordaysay. arki kartaa sida aaga uusan u weynin, taas ayaana ka dhigaysa mid yaab badan oo booliiska dhowr jeer baaritaan sameeyaan, haddana aysan helin wax raad ah. waxa kale oo muhiim ah in la ogaado in biyaha haradu ay aad u qabownaayeen. hogaasin ayaa wuxuu biyaha ka dhigay kuwa aad u markii ay biyaha gashay iyadoo argagaxsan qabow xooga ah ayaa xaaladda ugu sii daray isla markiiba. haddaba sidee la yeelay muuqaaladii YouTube-ka ee ay u dirtay hal qof? waxay yiraahdeen waxay u badan
tahay inay ahaayeen isku soo beegmid oo keliya. Muuqaaladaas waxay markii hore u ekaayeen in qof si weyn ugu lug lahaa nolosheeda amaba uu qof daba socday, laakiin taasi ma aysan noqon xaqiiqda. Waxaa laga yaabaa inuu jiray qof kale oo jecel dhab u qaaday kaasi aan ahayn heesaaga, amaba qofkaasi inuu ahaa qof ku jira maskaxdeeda dhab ahaan ayada aaminsantahay inay isaga xiriir la leedahay. saaxiib kaalay bal aan sababta kuu sheegay. dadka qaar waxaa jira inay maskaxdooda ka sawirtaan qofkaasina oo iyaga saaxiib leeyahay, qofkaasina ayaga oo keliya ayaa arki karo dhibaatadooda iyo farxadoodana isku sheegan karaan. si lagu fiiriyo dad kale waxaa ula muuqata inaad tahay qof waalan, run ahaantiin waxay tahay adiga qofkaasi gaar ayaad u arkaysaa. adiga dadka sidaad ku jirto xaalad nafsi aad qabtaa, waxaad u baahan tahay inaad iska gaarto saaxiib yaal. waxaa laga yaabaa arrinta inay ku socotay heesaaga maadaama dharkeeda qaadatay una guurtay magaalada uu joogay, taasi laakiin maysan ahayn wax gebi ahaanba suurtagal ahayn. ayaas waxay sheegeen muuqaaladeeda inay ogaayeen calaamad muujinaya caawimaad dhanka maskaxda, waxayna ku tilmaameen taasi inay ahayd shil murugo leh oo ka dhashay xaalad aan la daaweyn. laakiin waxaa jira dad weli su'aal isweydiinaya kuwaasoo dhahaya waxba qaldan. sababtoo saaxiib yaal soo xasuusta raadadkeeda ugu dambeeyay wuxuu ku dhamaaday dhinaca wadada. waxay leeyihiin waxay ogaan kartaa in qof uu qaaday kadibna halkaas uu ku soo celiyay, laakiin haradan mar walba kusoo laabaneen runtii aad bay u yar tahay. deegaanka xitaa qaarkood waxay uga yeeran baliyar. khariirad googalkana kuma lahan magac gaar ah, taasna waxay keeni kartaa fikir ah inay u badan tahay inay raadinayso meel ay u aragtay ammaan. qoyskeedana waxay sheegeen inay jiraan su'aalo fara badan oo aan weli loo helin wax jawaab ah. iyagoon isiri maxay shaqada ugu soo tagtay si ay hotel u degto halkii ay aadi lahayd guriga. waxay saaxiib ama shaqaale uga codsatay inuu geeyo hotelka ayadoo haysata furaha gaarigeeda. fuu ahaan haddii aan ka hadlo aragtidayda, waxaa jirta aragti ay dad fara badan ka hadleen ka hor inta aan muuqaalka la soo gabagabeyn. aan aragta aniga sameeyay. dadku mararka qaar waxay sameeyaan aragtiyo kala duwan, qaarna way faa'iido yeelan karaan, laakiin aragtidani ayaa aad u fog. waxay sheeganaysaa in dowladda ama booliiska iyaga sababeen dhimashadeeda. sababta ay dadka qaar sidaas u leeyihiin waxay ku saleysan tahay haladaas ayaa la baaray dhowr jeer, kadibna si lama filaan ah kalluumaysato ayaa oo sheegtay inay halkaasi ka heleen meel. laakiin arrintan waxay dib ugu noqotay wararkii iyo warbaahintii laga sameeyey kiiskanin wuxuu noqday mid si hadal weyn ah loo hadal hayay. badan ayaa la barbar dhigay kiisaska dadka caanka noqday ee la waayay, sababtoo ah warbaahinta aad bay ugu hadashay. haddii qof sidan oo kale ulamo marar badan ma dhacdo warbaahinta inay ka hadasho saacado fara badan, laakiin kiiskeeda waxaa laga sameeyey warar, wareysyo iyo barnaamijyo badan oo muddo dheer taasi waxay keentay in dad qaar rumaystaan inay jiri karto wax la qarinayo. kamida aragtiyaa waxay sheegayaan in laga yaabo in waxyeelo loo geystay si jirkeeda loo isticmaalo, dibana sababo sharci darro ah. waxay ku doodayaan inay dhahayd taasoo ka dhigtay inay fududaan karto inay waxyeelo ama lagu sameeyo wax keena xaalad maskaxeed. waxay sheegeen inaysan hore u lahayn dabeecad noocan oo kale ah. darteed dadka qaar waxay qiyaaseen in intii ay maqneed wax loo geystay dibna la dhigay halkii laga helay markii hore. baasina keliya waa aragtida dadweynaha, waa fikrad aad u fog. dadka qaar ayaa weli ilaa hadda u fasiraya sidaasi dhacdooyinka. hoteelka u heshay lacag iyo aqoonsi ay tegi lahayd habeenkaasi, waxaa laga yaabay waxyaabo qaldan inay dhici lahaayeen. waxaa la isweydiinaya maxaa dhici lahaa haddii hoteelkaasi qolka heli lahayd habeenkaasi. laakiin su'aalaha badan saaxiib qofka waxay gelin karaan fikir aan dhammaad lahayn. iskaan wuxuu kamid tahay mid kamid ah sheekooyinka marar qaar kusoo laalaabtaa maskaxda, sababtoo ah wuxuu lahaa dhacdooyin fara badan oo cabsi iyo yaab inta badan. inkastoo kiiska la xadleeyay, laakiin jabigii hareerihiisaba wuxuu ahaa weli mid aad u cabsi badan. haddaba daawadahayga sharafta looba adiga haddii ahaan lahayd baaraha kiiskani, waxaad kusoo gabagabeyn lahayd oo sidee ayay kula noqon lahayd fikirkaaga inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga. waad ku mahadsantiin jecelayaal maadaama aad siiseen waqtigiina quruxda badan. waxaan idinkaga tegayaa saaxiib yaal khayr, nabad iyo caafimaad.